war degdeg ah oo haatan ku soo dhacay radio halgan ayaa sheegaya in magaalooyinka Rosh iyo Tel Aviv ee caawa duqeyn ba'an kala kulantay dowladda Islaamiga ee Iran. magaalooyinkaas oo inta badan dhulka la dhigay ama khasaare fara badan oo ka dhashay. hase ahaatee warbixinada ayaa tilmaamaya in ay Iran gantaalada ridada dhexe ah ay ku weerartay Rosh iyo Tel Aviv, taasi oo keentay khasaare weyn. macluumaadka hordhac ah ayaa sheegaya in ay dhaawacyo badan iyo dhimasho badan ay magaalooyinkaas laga soo sheegayo. hase yeeshee weli lama xaqiijin tirada rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawacanka kala fiidnimadii caawa ayaa duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaadeen safaaradda Mareykanka ee Dubai. wixii warar ah oo ku soo kordho in nagala socda radio halgan.